dagaaladii ugu waaweynaa saxaabadu gashay waxa kamid ah xarb al-Qaadisiya Ciraaq meeshan la yiraahdo ay ku taala Ciraaq waxa inteeda badan haystay Persia dawladii Iran ma ka talin jirtay caasimadoodii Madain waa Baghdad dhinaceeda kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iran-ta majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxa kamid ah dagaalka Qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ay sortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxa hogaaminaya 10 المبشرين kamid ah Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay kamid ah marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhexmaro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا mid kamid oo hadaynu soo qaadno Ribci ibn Amir baa kamid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha Rabi ibn Amr oo fars yaro gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine waxay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid kamid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaca waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu uma rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabina waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yiri Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ma hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daayay buu ku yiri ma hubkiisa soo daayay isagoo wixiisi tu soo galay su'aal baa la weydiiyay markaa ma jaa bikum war maxay idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxay idin keenay saxari uga timaade wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا وأضون سن إلهي يقول إن يدتك الضوما ونقضان ودتك حرية هلان بحنوسع عن أبو لي عبادة إلهي قاركو نقط وحنو كلاو صعنا أبو يدي إن ندتك دوني دا عريري قاعدة كسر رب اللي عيدا وصاره هذا وان كان كاربتية دا عصر دكتايا عرشي قوين كفر ديا أيوه حكولة يا عريري كاساريا عريري هو قلبي كان دونكو قيمة ولا ما فرديا وين كاربتية دنيا وحن كانوا كفرديا وين قيمة وما سمينش وحن كلفي عن عدالة مارتاي التوحيد كيسة الدين تيسة وحا استاكلا فيه بركا وحو ليه دونك هو رباط كو قبطايه عريري كان دون من كاب بحنا يا وحن كو صاري يا محي بلع دون كان كو جيني يا بولي وحن كلاو سعود ابو يري ديمها الظلم قودا إنان كحينو إسلام كعدالة دي سكو صار يعني موقف كان وحو الصورية نينك كان ولو ميشن نينك حول بدن وكا بدبدك الدنيا كفي عنو تاغن يهي إنو معتز بالدين يهي دين تيسوح ودقان تاينان وشيرين إنو الرميسيني تاسوحي كان سنسان وقف كان الدين تيسا يلاشدو إلهي وحنا وحينا لي حتى هدي سيدا كالودا الله يدين كحقبطو ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ورها اللي دنينا بالا يدوها مرغونينا إذن كاكوريا هدي إيمان وشيرو داد رميسان تاي ربك يكو حدان تاي أدا كوريا صلى الله عليه وسلم تلمامنو وصحابة غير مكاها يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي يسيو مغدينا
markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale oo 10 al-mubashiriin ah hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galaynaa saasaanu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale Umar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii Bayt al-Maqdis inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanay intuu Umar ka daadagay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisina soo hogaamiyay dhoobadiina iska soo dhex socday Abu Ubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo Abu Ubayda wuxuu yidhi Umarow ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو إن مقالة دتك دي مدح دينا يكو أركان سيدان أدقو نكن فايداني عقار دوبادا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أرى يقول بصدق أدقى عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بويري أبا عبيدة waxaan jeclaan lahaa mid aan adiga ahayn inuu yiraahdo Abu Ubayda adiga ka xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kale oo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayda waa ogiyay laakiin wuxuu yara rabay isagoo amiirul mu'miniin ku muuqda amiirul mu'miniin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado لكن عمر وحو كليه وحانو هين إنا كنا ذل قوم داد الدل يسنبانو هين إلهي الدين تنبو نقو عزة يضدنا قدق يبولي مركانو عرب هين دولك يجي شوقني داد الدل يسنبانو هين جرني لكن إلهي وحو نقو عزة ينقو شرفي دين تطن هدانو كرا دي نبولي شرفت ميلان دين تيضا هين إلهي وانا ذلينيا إلهي الدين بو نقو شرفي waxaan diinahayn hadaanu sharaf ka raadin waa duloobeyna waxaan uga dan leenahay qofku mu'taz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidbidkana adduunyo inaanu qiimo badan ku lahayn taas waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xajisto ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlaya alayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada la hadlaya waxa la yidhi fastamsik billadhi uuxiya ilayk innaka ala siraatin mustaqiim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي يوحي إليك وحي لغوسو وحي يضي حجسو وهي جد صحبات كسوغانتا يبا إلهي لي جد قمم كتاغانتا وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هي أديك يطلقا بابا إلهي لي إلهينا ويدين دونا مركا وحي ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a